cinwaankan waxa uu ku xusay qoraagan in reer galbeedku ay ogaayeen qorshaha Israa'iil ay qise ka damacsan tahay bilowgiiba. Wararkan hadda ka soo baxaya in uu ku yimid cadaadis siyaasadeed iyo mid dadka ka yimid iyo in ay maareeyaan waxyeelada iyo sumc xumada ku dhacday. Waxa uu leeyahay Israa'iil Gaza inay rabto inay ka takhalusto qorshaha waxay ahayd Netanyahu. Wadamada reer galbeedka hogaamiyaashoodana way ogsoonaayeen qorshahaasi bilowgiiba. Carada ay hadda muujinayaan ma aha mid ku timid akhlaaqiyaadkooda waa mid ku timid siyaasad iyo cadaadis. Maxamed Shahaad oo asaga laftirkiisa Falastiiniya ayaa waxa uu xusayaa Juulaay 2024 inuu ka qayb galay shir ay ururka midowga Yurub lahaayeen. Mid ka mid ah hogaamiyaasha Yurub ayaa xaaladda Gaza ka hadlayay, wuxuuna ku bilaabay hadalkiisa, haddaan anaga Yurub nahay wax saameyno oo aan leenahay haba yaraatee ma jirto. Wax kasta uu sheegay maalintaas ayaa ninka qoraaga waxa uu sheegay inuu la yaabay, sababtoo ah sida uu u sheegayo inay ka hor imaanayso waxa ay dadka u sheegaan markay idaacadaha iyo dadkooda la hadlayaan. Waxaa sidoo kale uu ninkaasi hogaamiyaha uu qaybiyey dadkii uu la hadlayay sawirro laga qaaday satellite-ka oo muujinaya masawirro laga qaaday magaalada Gaza iyo sida Israa'iil u burburisay. Wuxuuna sheegay Israa'iil ayaa waxa ay xaaqday oo ay burburisay dhammaan dhismayaashii ku yaalay marinka Gaza, waxayna ka dhigtay meel aan lagu noolaan karaynin. Dagaalka hadduu dhimaadana dadka Gaza waxaa qasab ku noqonaysa inay khiyaar kale lahayn oo aanan ka ahayn inay meesha isaga baxaan. Waa sida uu qoraagu sheegayo. Waxaa sidoo kale uu ku eedeeyey ururka midowga Yurub inay munaafiqiin yihiin. Wuxuu sheegay in shacabka Gaza ay cunno iyo siinayaan faashado nabarada ay ku dhaydaan subaxii, galabtiina inay Israa'iil ay bam la dhacayso. Haddii dadka la dilana waxa ay dhinteen ayagoo calooshooda ayna marnayn. Haddii ay badbaadaanna waxaa lagu dhayayaa faashada ay Yurubku keentay. Waxaa ka soo baxay hadalkii uu ninkaasi jeediyey waxay ahayd xaqiiqada dhabta ee jirta. Inta badan xukuumadaha Yurub ayaa fursad siinayay Israa'iil si ay u sii wado dagaalkeeda. Xataa qaar baaqiyo jeedinaya ayaa baaqooda waxa uu ahaa la xiriira xabad joojin iyo heshiis in la gaaro mid maran. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha Yurub ayaa waxay Israa'iil weydiisanayeen almeeno haddaa Falastiiniyiinta dilayso dil tiro yar oo 100 ka hooseysa si wararka waaweyn ee caalamka aynan Gaza u soo gelin. Saatee waxay qaadatay in ka badan 1 sano ilaa ay inta kulanka ay madaxdaasi reer galbeedka ay yeesheen oo ay hoosta ka xariiqeen xaqiiqooyinkaas la xiriira xasuuqa. Waxaadna moodaa in xasuuq markii la sheego ay erayada ka warwareegayeen. Waxyaabaha la yaabo waxaa ka mid ahaa in hogaamiyaashaasi ay ogsoonaayeen qorshaha Israa'iil iyo waxay damacsan tahay inay rabto inay Falastiiniyiinta oo dhan layso. Bilowgiiba Israa'iil way caddaysay inay ku tala jirto inay xasuuqdo Falastiiniyiinta. Istiraatiijiyadeedana ay tahay inay isticmaasho hadaf kastoo ay ku gaari karto. Dil wadareed ha noqdo, baahi u dilid ha noqoto, burburin guryahooda ha noqoto, isirsifayn ha noqoto. Wax kastoo Israa'iil ay samayn kartay ma aha wax cusub, way samaysay. Welina waxay sii wadaa inay si tartiib ah u dhabargoyso dadka Falastiiniyiinta ah. Halkaasoo caalamka oo dhan uu 19 sano dhaqanka qallafsan ee Israa'iil kula dhaqmayso dadka Falastiiniyiinta iyo militarigeeda dhibaatada iyo weerarka u geysanayo
ayay indhaha ka qabsanayeen. waa gartay maxaa laga sheegay ka hor 7 Oktoobar iyo sida hogaamiyaasha reer galbeedka iska indhitirayeen waxyaabaha ka socda dhulka Falastiiniyiinta iyo sida ay ugu mashquulsanayeen caadiyeynta xiriirka Israa'iil ee la leedahay dalalka Carabta ayagoo isku iloobeen qadiyadii Falastiin. reer galbeedka ayaa waxa uu leeyahay dagaalkan 7 Oktoobar bilowday ka hor ayay ogaayeen Israa'iil waxa ay sameynayso, indhahayna ka qabsanayeen. waxaa socday xasuuqana ma bilaaban, Gazana kama bilaaban. Falastiiniyiinta ayaa si olakac ah loo leynayay sanado badan. Qaramada Midoobe ayaa waxa ay 2018 Israa'iil weydiisatay in ay cunaqabataynta ka qaado marinka Gaza sababtoo ah dadka noloshooda ayay saameynaysaa. hase ahaatee marka laga hadlayo shirarka waxa kaliya la soo qaaday waxay ahayd heshiiska Abraham. arrimaha Falastiiniyiinta oo dhan dhinac baa la iska dhigay. waxaadna moodaa siduu qoraaga hadal ku dhigayo in dadka Falastiiniyiinta ah loogu talagalaba in kulligoodba ay Israa'iil ka taqalusto. Falastiin burburka jabaaliye dhexdiisa kaliya kuma ay socdaan. kadib markii ciidanka cirka Israa'iil iyo ciidankeeda lugta ay weeraro dhowr goor ku qaadeen iyo diyaaradaheeda droniska ah sida sawirada badan lagu arkay, waxaana muuqata in waxa ka dhacaya dil, barakicin, baahi in ay ogsoonaayeen. cudurdaarkoodana uu ahaa Israa'iil xaq ay u leedahay inay isdifaacdo. waa gartay maxaa laga sheegay warbaahinta reer galbeedka naxdinta bulshada Falastiin iyo dooda ku saabsan xabad joojinta? muddo dheer ayaa wararka caalamka waxaa ku jirtay arrimaha Gaza. ma aha Xamaas markay Xamaas gantaalo rido ayay wararka soo gashaa. Israa'iil inta ay xoog ku hayso dadka Falastiiniyiinta Gaza iyo daanta galbeed, warbaahinta reer galbeedka war uma aynan ahayn, laakiin Xamaas markay gantaal rido ayuu war noqonayaa. ilaa ay wixii ka dambeeyay Oktoobar 7 hogaamiyaasha reer galbeedka waxay Israa'iil ku riixayeen in ay ku tala jirto xaalad kacsan inay jirto. waxayna sheegayeen in xaaladani aan xasuuq ahayn, xasuuq inuu ku talagal ahayn. bulshada Israa'iil ayaa waxay ku jireen bari xaalad miir la'aana iyo cabsi iyo sas. waana sentensyada ama erayada iyo weeraha idaacadaha reer galbeedka laga maqlayay iyo mar kastoo madaxda Yurub ay kulanto. cid ka hadasha ma jirto saska iyo dhibaatada dadka Falastiiniyiinta maalin walba hortaagan. xataa wixii ka horreeyay Oktoobar 7 boqolkiiba 90 caruurta marinka Gaza kulligood sas ayay qabaan. intooda badanna shacabka niyad jab weyn iyo qulub ayaa ku jira ka yimid duqeynta Israa'iil. waxaa laga hadlayaa dagaalka ka hor Oktoobar 7. Falastiiniyiinta inta badan ayaa waxay ku dhex nool yihiin ama ku dhex noolaayeen 3 dagaal iyo 10 weerar oo ay militariga Israa'iil ku qaadeen marinka Gaza iyo daanta galbeed, iyo 2 goor ay isku dayday inay xoog ku qabsato marinka Gaza. waxaasoo dhan ma maqlaysid cid ka hadlaysa xasuuq. xataa ka hor Oktoobar 7 sanadii 2022 iyo sanadkii 2023 waxaa dhacay oo Israa'iil ay ku daadisay dhiiggii ugu badnaa daanta galbeed ee la ogsoon yahay taariikhda. marka la fiiriyo indhaha wadamada reer galbeedka, Falastiiniyiinta xuquuq uma laha in ay aargutaan ama ay isku dayaan inay iska caabiyaan. arrintaasi waxaa muuqata
in ay xumeynayso israa'iiliinta mar kasta cudurdaar ayay reer galbeedka u raadinayeen haddii xataa la isku dayo in si toosa loo cambaareeyo israa'iil in ay israa'iil ku dhaqaaqayso in ay xabad joojinta ay ku samayso xagaldaacin iyo maxaabiista la kala bedelanayo wadaxaajoodka la rabo xamaas mowqifkeeda ayaa adkaanaya waa sida ay ku doodayaan reer galbeedka oo waxay noqonayaan qolo aan tanaasul samaynin laakiin xaqiiqada meesha jirta ayaa waxay tahay warbixinada israa'iil laftirkeeda daboolka qaaday cidda xagaldaacinaysa wada hadallada iyo heshiisyada inuu yahay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu dhowr biloodna hortaagan xabad joojintii la gaaray xamaas mar walba wada hadalka si niyad wanaag ayay ugu jirtay waxaadna moodaa in mar walba lagu soo celinayo in xamaas ay gar daran tahay warbaahinta ayaa qayb ka ahayd in ay xaqiiqadaasi daboosho waayahay maxaa keenay marka soo jeedka degdega ah ee reer galbeedka iyo sida diiradda loogu wareejiyey iiraan maxaa ku qoran arrimahaasi bishii may dabeeqadeeda falastiiniyiinta gaza ayaa waxay rajo weyn ka qabeen cambaareynta kasoo yeeraysa iyo bayaanada kasoo baxaya wadamada yurub ee ku baaqaya israa'iil inay joojiso baahida ay dadka falastiiniyiinta iyo siyaasadeeda baahida ee ka dhanka falastiiniyiinta xataa wadanka jarmalka oo ah saaxiibka ugu weyn ee israa'iil leedahay ayaa xataa ka aamis waayay arrintaas oo sheegay israa'iil dagaalkeeda inuu yahay mid aan cudurdaar loo heli karayn wixii markaasi ka dambeeyey israa'iil waxay weerartay iiraan caalamkii oo dhan waxa uu ku jeestay gantaalada iyo diyaaradaha daroniska ah ee labada dhinac ay isweydaarsanayaan hogaamiyaasha yurub kulligood waxay bilaabeen inay ammaanaan israa'iil weerarka ay ku qaada iiraan waxaynu ku sheegeen inay tahay tallaabo looga joojinayo iiraan inay bom nuclear samaysato arrintaasna waxay ahayd mid muujinaysa siduu qoraaga u dhigayo munaafiqnimada wadamada reer galbeedka waa gartay maxaa lagu sheegay isku dayga in la ilaaliyo Gaza iyo saddexda sababood ee isbedelka ah saddexdaas arrimood reer galbeedka israa'iil ayay ku taageerayeen dagaalkii ka dhanka ah iiraan waxa ayna muuqatay in ay ka jeedinaysay caalamka israa'iil xasuuq ay ka geysanayso marinka Gazana waxay noqotay warkeeda mid la arki waayey israa'iil markii ay bilowday inay bambooyinka iyo gantaalada la dhacdo iiraan xasuuqii marinka Gaza ka socday waxa uu ka baxay wararka caalamka iyo warbaahinta caalamka waxaana muuqatay in xataa aan lagu soo qaadin kulamada iyo goobaha iyo shirarka waxaana caddayd in wadamada reer galbeedka ay ka goonayd in ay iska jeediyaan Gaza iyo waxa ka socda dabeeqadii Juulaay waxay soo saareen qoraal erayo culus ku qoran yihiin oo ka dhan ah israa'iil dabeeqadii Juulaay waxay soo saareen bayaan erayo culus ku qoran yihiin oo ka dhan ah israa'iil oo mar kale ay soo nooleeyeen markii ay ka soo jeesteen iiraan waxaana muuqata in tallaabooyinkooda sida dalalka jarmalka oo kale in ay rabeen in ay joojiyaan qalabka militariga ee israa'iil siiyaan hase ahaatee yurub walwalkeeda la xiriira Gaza iyo damiirkooda soo noolaaday iyo in ay ku soo baraarugeen israa'iil inay xasuuq ka geysanayso marinka Gaza ka dhana falastiiniyiinta ayaa ah wax dambe isbedelkan waa muuqataa inuu ku yimid natiijada ah saddex sababood waa marka koowaade hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa filayay in wararka la xiriira marinka Gaza iyo dadka taageeraya Gaza inay tartiib tartiib saaxadda uga bixi doonto la iska halmaami doono hase ahaatee israa'iil waxa ay wado iyo xasuuqa ayaa dardar geliyey
wixii ay filayeen cagsigeeda inay dhacdo. waxaadna moodaa aarahdii wadamada reer galbeedka iyo caalamka oo dhan inay tartiib tartiib sii ballaaranayso ay u korodhay, caalamka oo dhanna uu kasoo horjeesta waxa Israa'iil wado. mudaharaadyada ka dhacaya wadamada Netherlands, Australia iyo Britain ayaa waxay soo jiiteen dad fara badan oo mudaharaadayaal ah. ereyga xasuuq oo markii hore warbaahinta reer galbeedka ay ka baaqsanaysay ayaa waxa ay bilaabeen olole ah in ay abuuraan ereyo kale oo aanan muujinayn meesha inuu xasuuq ka socdo. saatee wargeyska la yiraahdo Financial Times ayaa ceebeeyey wadamada reer galbeedka aamuskooda arrimaha Gaza la xiriira. nin suxufiya oo caana oo Piers Morgan la yiraahdo ayaa asna bedelay mowqifkiisa oo sheegay waxa socda indhaha kama qabsan karo, Israa'iil waxa ay geysanaysaa waa xasuuq. wargeyska The New York Times la yiraahdo Mareykanka ka soo baxa ayaa daabacay nin aqoon-yahan oo Israa'iili ah oo ku cadeynaya Israa'iil dagaalkeeda marinka Gaza inuu u dhigan yahay xasuuq. waa gartay marka haddaan ka gudubno qodobka koowaad, maxaa lagu xusay qodobyada labaad iyo saddexaad? qodobka labaad waxa uu ahaa in hogaamiyaasha Israa'iil ay noqonayeen kuwa aanan wax isbedela ku samayn siyaasadooda. waxay u muuqdeen waxa ay samaynayaan in ay ku fakanayaan. weliba waxaa dhiirigelin xoog leh ay sii heleen markii uu Trump ku guuleystay doorashadii. wadamada reer galbeedka oo dhan qayb ayay waxay ka yihiin waxaa ka dhacaya marinka Gaza. aamiskooda ayaana ku cadeynaya iyo hubka ay ka gadayaan Israa'iil. hogaamiyaasha reer galbeedka way ku adkaatay in ay iska leexiyaan xasuuqa ay Israa'iil ka geysanayso marinka Gaza iyo ereyada afxumada ah ee hogaamiyaasha Israa'iil ka soo baxaya oo lagu tilmaamayo Falastiiniyiinta xasharaad iyo xayawaan. waxayna ku sheegeen wixii ka dambeeyey 7 Oktoobar in Israa'iil ay weli careysan tahay. hase ahaatee wixii ka dambeeyey 22 bilood ee dagaalka ahaa, bayaanada soo baxaya ayaa hadda waxay lagu celcelinayaa kadib markii xasuuq si cad loogu baaqay in la rabo in la hor istaago gargaarka bini'aadanimada, la burburiyo wax kastoo Gaza ku yaala. mana adka in reer galbeedku ay qirtaan waxa meesha ka socda inay dambiyo dagaal yihiin, xaaladana ay kasii darayso. qodobka saddexaadna waxaa lagu sheegay hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa waxaa dhaqan u ah inay iska indhatiraan caruurta lagu leynayo marinka Gaza oo ay ku sheegayaan waa wax si shila u dhacay, ma aha in caruurta la beegsaday. hase ahaatee sawirada dadka caloosha kasoo ridaya ee kasoo baxaya marinka Gaza, caruurta baahida u dhimanaya, ayaanan ahayn mid lagu eedeyn karo ururka Xamaas, gaar ahaan markii Israa'iil ay ku faraxsan tahay in ay dadka Gaza ku nool ay baahi u disho. xataa markii qaramadii midoobe hay-adaheeda iyo boqolaal hay-adood oo samafal ah ay sheegeen in dadka Falastiiniyiinta lagu qasbayo baahi, laguna riixayo 100,000 oo Falastiiniyiina, dhimashadana ay bilaabatay hubaal tahay, waxaa la bilaabay in la iska indhatiro.